بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسور وهذا ورك جنال كينا حوكتا دالك قضبضا وركينا عاد كدا ودوتان وحاكا بدقودولا فرماجو شاعي حوكتا اسكرتي لقي اريتري حسن الشيخ وجواب كبحي رئيس الوزراء روبلا اوسو ساري امر كسعود وزير كارمها دبدا الصومالية محويا امر كاسي سيديكو هابون ان لقي العيدن كلقي قبل كقدو iyo hub ay bixisay dawladda Mareykanka oo lagu laayay shacab badan oo ku nool deegaanada Puntland ayaa daawadayaal warkeena ku soo qaadan doona hadaba daawaday hadii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like share iyo commentiga noogu dadaala aan ku bilaaw qodobka ugu horeeya farmaajo ayaa shaaciyay xogta askartii la geeyay wadanka Eritrea iyadoo Xasan Sheekh uu jawaab uu ka bixiyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo qodobad ka jeediyay munaasabada xil wareejinta madaxweynaha cusub ayaa ka hadlay arrimaha ku aadan askarta loo qaaday wadanka Eritrea Farmaajo ayaana ka sheegay xil wareejinta in ciidanka ugu badnaa ee Soomaaliyeed ee tababar loo qaado dalka dibadiisa gaar ahaan Eritrea ay yihiin kuwa diyaar ah madaxweynihii hore ayaa xusay in ciidamada ay gaarayaan ilaa 5,000 oo askari isla markaana ay dhameysteen tababarka balse dib ay u dhigeen arrimaha doorashooyinka dartooda ujeedka ciidamada Eritrea loo geeyay waxa uu ku sheegay in la tababaro si ay ugu qayb noqdaan dagaalka adag ee lagu jiro kooxda al-shabaab dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay arrintaasi ayaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan sidii ciidanka Eritrea la geeyay dalka loogu soo celin lahaa maadaama ay muddo dheer ay ka maqnaayeen waalidiintooda waxaana uu tilmaamay inaysan marnaba loo dul qaadanin in waalidiinta caruurtooda waqti inta leeg ay ka maqnaadaan isla markaana muhiim ay tahay in dalka lagu soo celiyo sida uu sheegay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in muddada ay ku maqnaayeen waalidiinta ay si weyn ugu walwaleen wiilashooda isla markaana ay u baahan yihiin si kastaba dood xoogan ayaa horay uga dhalatay ciidamada Soomaaliyeed ee la geeyay dalka Eritrea iyadoo mar la soo warinayo in laga qayb galiyo dagaalkii ka dhacay waqooyiga dalka Itoobiya taasi oo uga sii dartay walaaca waalidiinta ka maqan yihiin caruurtooda waxa qof walba ay hadalhaysay xaaladihii kala duwanaa ee caruurtaasi ay ku sugnaayeen iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo horay waalidiinta ugu ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan hadii xilka uu ku guuleysto caruurtooda uu dib ugu soo celin doono wiilasha haatan maqan ayaa qaarkood waxa la sheegayaa in ay ku dhinteen dagaalkii dhexmarayay jabhadda TPLF iyo dawladda wadanka Itoobiya taasi oo durbaba hadal heem badan ay dhalinayso inkastoo tiro sax ah aan laga helin caruurta halkaasi ku geeriyootay haddana wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in dhalinyarada sidoo kale tacadiye kala duwan ay u geysanayso dawladda wadanka Eritrea dhanka kale ra'iisul wasaare Roble ayaa soo saaray amar ku socda wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa soo saaray amar culus oo si toos ah uga socda wasaaradda arrimaha dibadda kaas oo la xiriira shaqaalaha laga saaray wasaaradda Roble ayaa wasiir Cabdi Saciid Muuse ku wargeliyay in laga bilaabo 1 Janaayo 2022 shaqaalaha dawladda ee la bedelay ama shaqada laga qaaday aanan waafaqsaneyn go'aankii hore uga soo baxay golaha wasiirada sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale faray dhammaanba shaqaalaha in dib loogu fasaxo howlahooda shaqo kadibna loogu celiyo goobihii iyo xafiisyadii ay ka shaqeynayeen mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa faray hay'adaha kala duwan ee dawladda in ay si weyn ula socdaan isla markaana ay mar walba ay ka digtoonaadaan xaaladaha kala duwan ee marka qaar shacabka Soomaaliyeed loo geysanayo wasiir Cabdi Muuse Ali ayaa waxa uu si weyn u bedelay dhammaanba shaqaalihii kala duwanaa ee ka howlgeli jiray wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxaana wasaaradda arrimaha dibadda uu geeyay dad ay isku heeb yihiin wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in dadka halkaasi la geeyay ee durbaba walwal uu soo wajahay si kastaba waxa uu amarkaani saameyn doonaa shaqaalihii kala duwanaa ee wasaaradda qaadatay wixii ka dambeeyay 1 Janaayo 2022 maadaama dib loo soo celinayo shaqaalihii hore u joogay wasaaradda ee la bedelay iyo kuwa toos looga saaray shaqada
ciidamada waxaana wasiirka arrimaha dibadda aan la ogeyn go-aanka uu ka qaadan doono arrinkan inkastoo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu sacad uu sheegay in qof laga yeelaya xadgudub aysan jirin islamarkaana dhammaanba wasiirada ay muhiim ay tahay inay ka shaqeeyaan dardargelinta shacabka Soomaaliyeed sida loo garab istaagi karo iyo sida mar walba looga fogaan karo eexda sida uu sheegay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaana tilmaamay in tallaabo kasta ay qaadayaan ay noqon doonto mid shaqaalaha rayidka loogu daneynayo dhanka kalena sidee ku haboon ciidanka la geeyay gobolka Gado in lagu soo celiyo magaalada Muqdisho dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa meelo kamid ah gobolka Gado geysay ciidan heer federaal oo ujeedka ciidankaasi oo ahaa kuwa maamulka Jubbaland inay ka taqalusiyaan madaxda iyo mucaaradka waqtigaasi uu ku jiray madaxweynaha cusub waxay ku sifeeyeen arrin siyaasadeed waxayna cod dheer ay ku dhihi jireen ciidanka halkaasi la geeyay la soo celiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si gaar ah ugu celceli jiray in ciidanka qalad meesha loo geeyay ayna tahay in dib lagu soo celiyo xeryahooda laga qaaday haatan Xasan Sheekh Maxamuud waa ninka dalka ugu sareeya isaga ayaana leh go-aanka iyo wax laga yeelayo ciidankaasi go-aanka uu qaadan doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana la ogeyn inkastoo dadka sida weyn u taxliiliya siyaasadda Soomaaliya ay sheegayaan in Farmaajo uusan raali ka ahayn in ciidanka gobolka Gado ku sugan in dib loogu soo celiyo xeryahooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ku kala sugan Beled Xaawi iyo Garbaharey loo baahan yahay in dib lagu soo celiyo magaalada Muqdisho waxyaabaha mar walba ay ku korgeli jireen waxaa kamid ah in ciidamada iyo amnigii 2016 ka jiray Garbaharey iyo dhibaatooyinka haatan ka jira waxa Garbaharey ay tahay meel hadda xaalad adag ay ka jirto maamulka Farmaajo ayaa si weyn ugu haminayay in markasta Beled Xaawi Garbaharey iyo Doolow gacantooda ay ku jiraan isla markaana talaabo kasta ee maamulka Jubbaland ay qaadayaan ay si weyn kaga soo horjeedaan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya kuwa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxa la geeyay qaybo badan oo kamid ah gobolkaasi Gado gobolka Gado ayaa maamulkii uu hogaaminayay Axmed Madoobe waxa uu la kulmay dhibaatooyin badan oo kaga imaanaya dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa rajadiisa waxay ahayd in talaabo kasta oo qaadaya ay noqoto in uu ka taqlusiyo cid kasta oo ka soo horjeeda hanaan siyaasadeedkiisa dhanka kalena hub ay bixisay CIA-da Mareykanka ayaa lagu dilay 22 qof oo Soomaali ah ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah ayaa lagu dilay 10 kalena waa lagu dhaawacay hub ay bixisay hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da ee loo qeybiyay ciidanka la dagaalanka argagixisada ee ka dhisan Soomaaliya dagaalka oo ku saabsan ciidda maamuleysa hubkaasi waxaa sidaasi baaritaan ay sameysay ku ogaatay warbaahinta Voice World News ee Mareykanka dagaalka oo dhacay sanadkii tagay ayaa dhexmaray askar ka wada tirsan ciidanka BSF-ta Puntland oo abuurtay CIA-da Mareykanka isla markaana tababareysay ciidanka Puntland Security Force dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray caruur uu dhalay nin lagu magacaabi jiray Saciid Shiidow oo da'doodu u dhaxaysay 8 jir ilaa 12 jir ninka kale oo dhalay oo 35 jir ahaa waxaa ku dhaawacmay 4 kale oo da'dooda ay ka hooseyso 6 8 9 ilaa 13 jir oo markii hoobiye uu ku dhacay gurigooda uu ku yaala magaalada Boosaaso sida ay shaacisay Fox markii madaxweyne Trump oo ciidanka Mareykanka ka saaray Soomaaliya horaantii 2021 waxa ay ka tageen hub aad u badan oo ay ku jireen hoobiyaal qoryaha AK-47 iyo sidoo kale rasaas ciidanka Puntland Security Force oo isku qabsaday maamulka xarunta ku taala Boosaaso iyo hubka laga tagay ayna qayb kamid ah waxaa la safnaayeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani halka qaybta kalena ay la jireen Maxamuud Cismaan Diyaano inkastoo ay qaboobeen wax waliba haddana cilmi baaris la sameeyay ayaa waxaa la sheegay dhibaatooyin badan ay dadku ay la kulmeen guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka saaxiibayaal waa naga intaa haddaba daawaday haddii aad janaalkeena ku cusubtahay subscribe noo saar janaalka wararkeena leega sheerka iyo commentiga noogu dadaala waad mahadsantihiin nabadgelyo